munaasabad lagu maamuusay xuska maalinta naafada adduunka ayaa maanta lagu qabtay magaalada Jigjiga. Munaasabadan waxaa ka soo qayb galay madax heer federaal ah, mas'uuliyiinta deegaanka oo ugu horeeyay madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar iyo marti sharaf kale oo ka kala socday deegaanada kale ee dalka oo ay ka mid ahaayeen dadka baahiyaha gaarka qaba. Munaasabadani intii ay socotay ayay soo bandhigeen qaar ka mid ah dadka naafada ah in dadka baahiyaha gaarka qaba aysan ka duwaneyn dadka ay u dhameystiran yihiin laxaadkooda oo ay qaban karaan inta badan waxyaabaha ay qabtaan. bandhigyadan ayaa isugu jiray ciyaaro iyo waliba riwaayado lagu muujinayay sinaanshaha dadka iyo waliba in aysan waxba kaga duwaneyn dadka kale ee laxaadkoodu dhameystiran yahay. madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar ayaa dhiirigeliyay dadka baahiyaha gaarka qaba waxaanu sheegay in xukuumaddu si cilmiyeysan xil isaga saarayso dadka baahiyaha gaarka qaba. sida la socotaan maanta waxaan halkan isugu nimid xusitaanka xafladda maalinka dadka baahiyaha gaarka qaba oo deegaankeena markii ugu horeysay laga xusayo dal ahaan markii 29aad adduunkana markii 30aad laga xusayo. runtii waa munaasabad aad muhiim u ah marka aad eegto tirada ay leeyihiin dadka baahiyaha gaarka qaba ee deegaankeena. marka waxaan rajaynayaa in fursadani ay noqon doonto mid baahiyahana ugu baraarujinaysa dadkaas ay qabaan. dhinaca kalena mas'uuliyadda aan iska saarayno shacab ahaan iyo dowlad ahaanba inaan si cilmiyeysan siyaasadaheena kala duwan qayb inay ka noqdaan. marka waxay ila tahay in maanta xuskani uuna noqonin xus uun maanta inta la isu yimaado aan kaga hadalno baahiyaha gaarka in loo naxariisto kale dadkoo kale ah saas maaha ujeedadu waxaa weeye dadka baahiyaha gaarka qaba dad productive members of society ah oo bulshada qaybka inay yihiin inaan isla qaadano. dhankooda waxaa iyaguna ka warbixiyay dareenkooda qaar ka mid ah dadkii ka soo qayb galay munaasabadda waxayna sheegeen inay ku faraxsan yihiin xuska maalinta naafada adduunka oo markii koobaad lagu qabtay deegaanka Soomaalida. maanta aad baan u faraxsanahay waa maalintii koowaad ee regionka Ethiopia oo dhan halka lagu qabto xuska naafada ah. waa maalintii 29aad ee deegaanka lagu qabto oo maalintii 30aad ee caalamka ah. aad baan u faraxsanahay madaxweynaha baa ka soo qayb galay wasiirka arrimaha federaalka arrimaha bulshada oo reer federaal baa ka soo qayb galay dad badan baa ka soo qayb aad baan u faraxsanahay. idinka dadka baahiyaha gaarka qaba ee deegaanka Soomaalida gaar ahaan maadaama ay markii ugu horeysay deegaankana lagu qabto maxaa dareemaysaan? dareenkeenu aad buu fiican yahay aad baan u dareen fiicannahay waxaan dareemaynaa farxad iyo reereen baan dareemaynaa. tan labaad waxaan arkaynaa in oo nala xusay oo Ethiopia oo dhan halka imaatay oo caalamka indhiya caalamka maanta halkan deegaanka soo jeedo aad baan u faraxsanahay. maxaqadna arrimaha naafadu wax badan baan u baahannahay. koow waxaa ka mid ah iniga yaa wax badan niga baahannahay sababtoo ah warbaahintu waa halka kaliya ee warka qaada. in time intaan yeelano aan soo wada hadalno aad bay u fiicnaan lahayd sababtoo ah barnaamij kooban intaan soo diyaariyo oo quruxsan aad naga duubtaan aad bay u fiicnaan lahayd. maanta caalamiga ah waxaa laga xusay micnaha heer caalami waa waqtigii 30aad dalkeenana waxa weeyaan markii 29aad. marka su'aashaad weydiisay haddii aan u soo noqdo waxa weeyaan waxa lagu soo wareejinayay deegaamada. hadda inagu eega waxaan kala soo wareegnay deegaanka Amxaarada. marka haddana waxaanu ku wareejinay ismaamulka Diridhaba. marka waa saas u wareegaya marka taraheeni maanta waan dhameysanay waqti siman cilmi waxay ka mid tahay dhalinyarada u dhaqdhaqaaqda arrimaha bulshada iyo daryeelka dadka baahiyaha gaarka qaba waxayna ugu baaqaysaa bulshada Soomaaliyeed in ay hoos u fiiriyaan dadka naafada ah iyo waliba bugtada Soomaaliyeed. ugu horreyn ku soo dhawo siman cilmi telefishinka 5 waxaa lagu qabtay deegaanka Soomaalida xuska maalinta naafada adduunka. waxaadna ka mid ahay dadkii ka soo qayb galay bal ka waran dareenkaaga? السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. maanta waxay ahayd maalinka dadka baahiyaha gaarka qaba munaasabadoodii oo lagu qabtay markii koobaad deegaanka Soomaalida. aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay in ay jirto maalin la xuso dadka baahiyaha gaarka qaba lana garab istaago sababtoo way mudan yihiin inaan mar walba garab istaagno. أنا فرصة كفاء إذا سنة وحن ربعنا كبورية دمان دنيرت ديجان كصوماليدا إن أي وقت بدن جليان إن يجرب استعجان ولا لذو الدنيرت أكو ذا حنوصل كو ذا قبضة هي هجاركا إن يجرب وين كسيان أيام كعد سنة إن شاء الله. حسكن أيام نقول يميت كجوهري اللي جو قبت ديجان كصوماليدا حالك أنتي كهري سنة اللي جو قبنا يديجان هذا كرئ دلكا أيام لعبد الرحمن حاشي 5 TV تشيك